marraba ma islahayd waddanka Ingiriiska loo tahriibayo ayaa wuxuu soo maray maalin uu ninku xaaskiisa iska iibinayo oo suuqa uu ku iibinayo haddaba qarnigii 17aad iyo qarnigii 18aad ayaa waxa waddanka Ingiriiska aad qaali u ahaa furiinka oo ninku hadduu islaa xaaskiisa iska fur ama gabadha ay doonto in ninkeeda ay furiin dalbato dawladdu waxay uga baahnaa lacag aad u badan oo lacagtaas oo kaliya waxa bixin karayay nin ganacsado oo dhaqaale badan haysta sidoo kale markaad lacagta bixiso arrinkaaga baarlamaanka ayaa la geenayaa oo arrintaas waxay arrin aad u adag oo qaadama dharka waxaan Soomaaliya ku raacno aad iyo aad bay ugu adkayd markii arrintaas ku adkaatay dadkii waxay keeneen arrin kale oo ah ninkii xaaskiisu intay soo heshiyaan maadaama ay doonayaan kala tagaan inuu suuqa geeyo suuqana uu ku iibiyo haddaba ninku gabadhan uu qabo gacmuhu ka soo xidhay ama qoorta ama dhexda suuqa ayuu keenayaa halkaas aanu odhanaya iga iibsanaya marka halka waxa ku iibsan jiray inta badan gabadhan uu inay la soo heshiisay ama nin kale isagoo meesha jooga marka qaarkood waxa la siisan jiray sida ku qoran qoraalada qaarkood 20 shilin marka qaarkood xoolaha lagu kala bedelan jiray marka qaarkoodna qoraalada waxa ku akhriyay in lagu bedelan jiray khamriga waxaana ugu caansanaa kiiskii gabadhii la oran jiray Maria Thompson gabadhaas oo la siistay 20 shilin iyadoo markuu waqtigu ahaa 1832 haddaba arrintan waxay noqotay arrin aad iyo aad saameyn badan u yeelata dawladdu xilligaa xal uma yahayn oo qarnigii wuxuu socday 17aad iyo 18aad maadaama aan xal kale aanay hayn dawladda arrintaa way ignore garaysay waxay muddo arrinkaas socdayba 1857 dawladdu soo saartay ayaa qayb kamid ah maxkamadda oo ka shaqeysa furitaanka wixii intaa ka dambeeyay dhacdadaas oo kale dib uma dhicin